xiisad aad u culus ayaa ka taagan magaalada Garowe halkaas oo ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo culus ciidamo iska soo horjeeda kuwaas oo ka kala tirsan maamulka Puntland iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee halkaas ku sugnaa ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale ciidamada maamulka Puntland ayaa halkaas saacadii la soo dhaafay waxa la soo warinayaa in ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo culus taasoo dadka shacabka ee halkaas ku nool ay soo wajahday cabsi xoogan iyadoona laga cabsi qabo in halkaasi ay ku dagaalamaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada maamulka Puntland dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la soo warinayaa in magaalada Garowe ay haatan u dirtay ciidamo cusub kuwaas oo tirabeel ah kaas oo hogaaminayay Xasan Shire Abgaal sidoo kale halkaasi waxa ku sugnaa ciidamo aad u fara badan kuwaas oo ka amar qaata dowladda federaalka Soomaaliya maamulka Puntland ayaa dhawaan waxa ay shaacisay in guud ahaanba deegaanada Puntland aan lagu arkin ciidamo aan ahayn kuwa maamulka Puntland sidoo kalena ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay gabi ahaanba isaga baxaan deegaanada ay ka joogaan maamulka Puntland dowladda federaalka Soomaaliya ayaa idan dhankeeda waxa ay sameynaysaa maalmihii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ciidan iyadoona ciidamo tirabeel ah ay ku daabuleyso deegaanada maamulka Puntland halkaasina si weyn dadka shacabka ay u dareemayaan cabsi xoogan waxaa la sheegay in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya halkaasi ku sugan ay ku jiraan diyaar garow ah maalmaha xorriyadda oo nagu soo wajahan sidoo kale maamulka Puntland ayaana waxay ciidamadaasi ay ku eedeeyeen in halkaasi ay ka wadaan falal amniga liddi ku ah kuwaas oo dhibaato ku ah maamulka Puntland sidoo kale waxaa la soo warinayaa in maamulka Puntland ay halkaasi ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayagana dhankooda ciidamo kale oo ka tirsan maamulkooda ay ku soo daabulayaan taas oo muujinaysa in khilaafka u dhaxeeya maamulka Puntland iyo sidoo kale dowladda dhexe uu noqon karo mid isu bedela gacan ka hadal dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale hoggaanka maamulka Puntland ayaana waxa sanadihii la soo dhaafay ay hayeen kuwa si weyn isku haya iyagoona ay isku khilaafeen dhowr arrimood ay kamid tahay arinta doorashada iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan deegaanada maamulka Puntland sidoo kale Gaalkacyo oo ah xarunta gobolka Muduga ayagana waxa ku sugan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo si weyn ay u diidan yihiin maamulka Puntland in deegaanadeeda ay ka howlgalaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyadana maalmihii la soo dhaafay halkaasi waxa ka socday dhaqdhaqaaq culus oo iska soo horjeeda taas oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku eedeysay in ciidankooda halkaasi ku sugan la duldhigay ciidamo kale halkaasina ay ka socdaan dhaqdhaqaaq culus lagana cabsi qabo in ciidamada ammaanka maamulka Puntland iyo sidoo kale kuwa xooga dalka Soomaaliyeed halkaasi isku farasaaraan taas oo muddooyinkii la soo dhaafay si weyn looga digayay